saddexdan dikri waa saddex dikri oo waaweyn oo ajarkooda malaa'igtii qori jirtay xumaanta iyo samaanta raqiib iyo catiid ay ka cajiseen ilaahay uu abaal marinayo maalinta qiyaamo saddex dikri oo ka mid ah adkaarta ilaahay lagu xuso ama saddex arrimood oo cibaado ah oo malaa'igta ilaahay oo kiraaman kaatibiinta ah oo qorta acmaasha bini aadanka wixii wanaagsan iyo wixii xunba ay qori weysay ay ka cajistay ajirka ay leeyihiin daraaddeed weyninka uu leeyahay ayaan rabaa inaan soo gudbiyo saddexdaas dikriga koowaad waa kelimad yar oo carabkana ku fudud miisaanka rabbulcizana ku weyn oo ajir badan laga helayo ilaahayna uu jecel yahay dikrigaasi wuxuu yahay yaa rabbi laka alxamd kamaa yanbagii lijalaali wajhik walicadiimi suldaanik waa 5 kelimo oo qofka muslimka markuu ku dhawaaqo ilaahay oo abaal aad u weyn iyo ajir aad u weyn uu qorayo abaalka la qorayana malaa'igta qori lahayd ay ka cajistay oo tabar weysay oo aysan qori karin thawaabka dikrigaas iyo ajirka inta uu leeyahay ilaahay baa yaqaan oo ay tahay macnaheedu rabbigeeyow laka alxamd mahadaad leedahay kamaa yanbagii lijalaali wajhik mahadaas oo u qalanta oo la eg wejigaada weynikiisa walicadiimi suldaanika iyo awooddaada weynika iyo baaxadda ay leedahay kelimaadkaas yarkaa ilaahay unbaa ajirkooda yaqaan waxaa u daliila cabdullaahi bnu cumar radi allaahu canhumaa ayaa wuxuu ka sheekeeyey anna cabdan min cibaadillaah addoomanka ilaahay addoon ka mid a ayaa wuxuu yidhi yaa rabbi laka alxamdu kamaa yanbagii lijalaali wajhika walicadiimi suldaanik ilaahayow rabbigow waa kugu mahadiyey mahad ballaaran oo u qalanta adiga cadamadaada iyo weyninkaada iyo awoodda aad leedahay facadalat bilmalakayn cabdullaahi wuxuu yidhi labadii malagba oo qorayay xumaanta iyo samaanta way ka cajiseen falam yadriyaa kayfa yaktubaa biha si ay u qoraanay garan waayeen markaasay fasacida ila asamaa cirka ayay fuuleen ilaahay ay aadeen markaas waxay dhaheen yaa rabbanaa ina cabdaka qad qaala maqaala rabbigeennow addoonkaadu kelimaduu ku hadlay laa nadri kayfa naktubuhaa taasoo aan aqoon weynay sidaa anugu aan u qorayno waan gara weyna ilaahay wuxuu yidhi asagoo ka og maadaa qaala cabdi addoonkaygu muxuu yidhi kelimadii ku celiyeen ilaahayow wuxuu yidhi addoonkaadu yaa rabbi laka alxamd kamaa yanbagii lijalaali wajhika walicadiimi suldaanik marka waa ka cajisnay dheheen ilaahay wuxuu yidhi uktubaahaa u qora kelimadaas kamaa qaala cabdii sida uu yidhi ii sawira ii soo koobiyeeya xataa yalqaanii fa ajziihi biha ilaa uu ila kulmo oo intuu soo geeriyoodo maalinta qiyaamo ilaahay aniga ilaah uu ila kulmo anigaa u abaal marinayo oo aqaan ajirkeeda xadiidkaas waxaa wariyey ibnu maajah marka waa dikri qaali ah dikriga labaad oo malaa'igtu ka cajistay waa sida tan alxamdu lilaahi xamdan kaiira طayiba mubaarakan fiih waa intaas alxamdu lilah xamdan kaiira طayiba mubaarakan fiih alxamdu lilah xamdan kaiira طayiba mubaarakan fiih oo macnaheedu tahay ilaahow adaa mahad leh xamdan mahad ayaad leedahay kaiiran fara badan dayiban wanaagsan mubaarakan fiihi la barakeeyey waa kelimaadkaas yarka alxamdu lilaah xamdan kaiira dayiba mubaarakan fiih weliba waxaa lagu daraa samica allaahu
gadaalkeeda samica allaahu liman xamida markii uu qofku yidhaha markuu dukanayo xamdan kaiiran dayiban mubaarakan fiih intaas hadduu yidhaha malaa'igta ilaahay waa ka cajista. anas binu maalik saxaabiga la yidhaha ayaa wuxuu yidhi nin ayaa yimid annagoo salaada ku jirno nabiga kula jirno markaasuu safkii soo galay markaasuu wuxuu ku hadlay alxamdu lilaah xamdan kaiiran dayiban mubaarakan fiih ilaahayow mahad ballaaran oo wanaagsan oo fara badan ayaad leedahuu yidhi. nabigu markuu salaaddii dhammeeyey ayuu yidhi ayukum almutakalimu bilkalimaat yaa ku hadlay kalimaad cusub fa arama alqowm dadkii waa cabsadeen waxay isdhaheen ama dembi nin walba wuxuu is yidhi ninkii ku hadlay wuu aamusay kuwa kalena maba oga saxaabada kale ninkii ku hadlayna wuxuu yidhi waxaani nebi kuuma dirin ama lagu qabsadaa markaasuu nabigu ku celiyey ayukum almutakalim fa inahu lam yaqul ba'san yaa ku hadlay kelimo cusub wax dhib lamuu sheegine ninkii yaa istaago wuxuu yidhi ana yaa rasuul allah anigaa ku hadlay kelimo nabigu marka wuxuu yidhi maxaa tiri yaa rabbanaa laka waxaan idhi uri alxamdu lilaah xamdan kaiiran dayiban mubaarakan fiih nabigu wuxuu yidhi marka cajibtu waan la yaabay kelimadaas aadaan u la yaabay maxaa yeelay waxaan arkay laqad ra'aytu 12 malakan 12 malag riwaayad kale bidcan wa 30 malakan dhowr iyo 30 malag oo cirka ka soo degay yabtadiruunaha u degdegayo ayuhum yarfacuhaa malaga ugu horeeyo oo qorayo oo number 1 qorayo ilaahayna u geynayo oo kor u qaadayo maxaa yeelay camalka saalixa ilaaha loo geeyaa ilayhi yascadu alkalimu dayib marka waa dikri yar carabkana ku fudud miisaankana ku culus ilaahayna uu jecel yahay dikrigaasina wuxuu yahay alxamdu lilaah xamdan kaiiran dayiban mubaarakan fiih af soomaalina wuxuu ku yahay macnihiisu ilaahow mahadaa kuu sugan iyo shukri mahaddaasoo aada u fara badan mahaddaasoo wanaagsan oo aada u fara badan ayaad leedahay ilaahayow kelimadaas malaa'igtu waa qori waayeen ajirkeeda ilaahay unbaa yaqaan markii ilaahay aad la kulanto ayuu ajir fara badan kuu qoraya. dikriga saddexaad oo ugu dambeeyo waa sidan allaahu akbar kabiiran walxamdu lilaahi kaiiran wa subxaana allaahi bukratan waasila allaahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira wa subxaana allaahi bukratan waasila oo macnaheedu yahay allaahu akbar ilaahayu adaa wax walba ka weyn kabiiran weynaan ayaad leedahay walxamdu lilaah mahadoo dhan iyo shukrine ilaahu adiga iskale wa subxaana allah xumaan iyo nusqaanoo dhanne ilaahayo waad ka hufan tahay kaamilnimo iyo sharaf iyo qiimi oo dhan ilaahu way kuu sugan tahay bukratan gelinka hore ayaad weyn tahay ood mahad leedahay ood xumaan oo dhan ka hufan tahay iyo waa asiilan gelinka dambe macnaheeduna waa sidaas waa dikri yar oo fudud laakiin ilaahay agtiisa wax weyn ka ah waxaa loogu talagalay saddexdan dikri in qofka muslimka uu xafido oo caruurtiisa baro oo weelkiisa baro markuu xafidane uu ku wardiyo carabkiisa ay ka qoynaato maxaa yeelay dikriyada qaar 10 lagu helaa qaar 30 lagu helaa qaar 100 lagu helaa laakiin saddexdan dikri waa saddex dikri oo waaweyn oo ajirkooda malaa'igtii qori jirtay xumaanta iyo samaanta raqiib iyo catiid ay ka cajiseen ilaahay uu abaal marinayo maalinta qiyaama.